السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويوتوب فوز لما أنت ولا ليال ويد السلام يا ميلاد شوكتان با الله يد السلام يلو ومالن أحد ويا بيشتنا اللحية لبعض تهي الحمد لله إله بن نبض نقصو قارسية يعافي عافيمات نقصو قارسية أنت إدقي سنة إلهي وحنا قبري يجنا إلهي إنه عافية عافيمات سيو سيدا أننا نبتقليه ذا عافيمات كألا النوسي يجنا عافية عافيمات الله أسيو ميلي تشوغان بإن شاء الله ولا الله قد ما أنت ميلي تشوغتان بويد السلام هي الله يد السلام ييرو لما أنت وحنا ذي الله إلهي هيدو كنا بتقليه ميلي تشوغتان با إلهي إنه هيدو كو حفظو إلهي إننا قردنا هينا حفظو ميلان جوغنا هينا كو حفظو ولا ليال maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo adduunka waxa weeye laba isku toosanba laba qof oo isku toosanba Ilaahay isuma saqiro subhanallah sababtay waxa badan inta dib laba qof oo waxaad arkaysaa dib wadeena labadoodaba hadii la isku daro labada qof oo dib wadeenka hadii la isku daro adduunyo dhan baa halaabaysa marka waa qof dib wadeena iyo qof kale in la isku daraa qof fiican iyo qof xun waa in la isku daraa Ilaahay sawaag daraa laba wanaagsan oo dhan ba inuu isku daro shalay waxa ka dhacay baarlamaanka waxaad aragteen oo ama aad maqasheen laakiin dhagaha iyagu aysan marna jeclaysan ayaa ka dhacay wadanka iyagu waa wahan weyneyn marra waa wahan weyneyn laakiin Ilaahay isaga ugu xaqeyrku noogu jira anagu ma ogin anagu waxbaan sharaysanaa laakiin waxa laga yaabaa inay khayr noo tayo Ilaahay subxaana og yahay waxa khayrku noogu jiro waad aragteen baarlamaankii shalay inay rideen ra'iisul wasaaruhuna wuxuu ahaa ra'iisul wasaare Soomaalida shacabku ay marra jeclaysteen buu ahaa oo marra qalbtooda ku weyn buu ahaa laakiin waxa laga yaabaa Ilaahay mid ka sii fiican inuu keeno mid asaga ka sii fiican oo aan kaasna ku dhagno in Allah keena laga yaabaa Ilaahay sawa ka baryayna asaga raxmaan oo raxiim khayr marra waa ku weyneen haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay haddiise mid ka fiican la keenana ayadana waa alxamdulillah wa shukri lillah asaguna waa wiilkayga oo noo soo shaqeeyay khayr badan Allah si meeshuu tagaba khayr kala kulmay Ilaahay idankiisa waa u ducaynaynaa hooyooyinka Soomaaliyeed haddaan nahay waa u ducaynaynaa Ilaahay khayr badan oo safilayna Allah siiyo qalbteedana waa ku weyn yahay loobi mayno insha Allah waana nin dhalinyaraayo waxa weeye wali waxa weeye Soomaali waa Soomaali oo biriba hadduu isa soo sharxo waa dooranaynaa insha Allah asaga mid ka khayr badan Allah noo keenan leeyahay Ilaahay idankiisa asaguna markuu nagu soo noqdo insha Allah mid khayr badan Allah nooga dhigo kuwa joogana kuwa khayr badan Allah nooga dhigo laakiin anigu mar bayle iyo khayra iyo in la bedelo ma ana jeclayn sababtay taabeylana waa ninkii ku dadaalaya in deynta la ka cafiyo khayrana waa ninkii sidaad ogeyd meel walba taagnaa marka labadaas ba in la bedelo ma ana jeclayn iyo wiilka hadda laga dhigay muxuu hayto ii sheeg laga dhigay si hayaha laga dhigay niman badan baan rabin in la bedelo laakiin haday dhacday waa wax dhacay dawladuna waxaan maqli jirnaa adiga waa ka indha dheertay marka iyaga og waxay ku soo bedeli doonaan Ilaahay idankiisa bismillah Ilaahay kuwa khayr badan Allah ku soo bedelay insha Allah bismillah annaga somar walba waxaan leenahay annagu dawladayada Ilaahay idankiisa mid aan la filaynin bay noqon doontaa mid khayr badan bay noqon doontaa Ilaahay idankiisa wadankii hagaajisay insha Allah bismillah inkastoo qalbteeda khayr ku weyn yahay oo marra khayr uusan marra niyadayada ka go'aynin haddana waxa laga yaabaa mid kale oo khayr badan in la keeno Ilaahay idankiisa bismillah Ilaahay subhanahu wa ta'ala mid kale oo khayr badan Allah keeno ilaah baan u baryaynaa ay Soomaali maxamed dhamaantiin laakiin annaga marra qalalaasa iyo dagaal iyo xarbi iyo dawlada isku dhacdhacay iyo siyaasiyiintii soo kala yaacdo adduunkii waxa weeye masaa'ib ka samaysa iyo waxaas waxbana tarmayaan annaga wadankeeno hagaaga wax walba ka weyn wadankeeno hagaaga wax walba ka weyn qalbteena waxa ku weyn wadankeeno hagaago sharaftiisu sii socoto aysan gaala iyo waxunu ina ka faa'iideysan iyo kuwa mariyo weyna iyo inaysan ina ka faa'iideysan baa muhiima
wax walba oo dhacana waxa weeye waa la qaboojiyaa ma ahana haddii hadeer inagu aynu kacno shacabku kacoo la yiraahdo hala dagaalamo iyo maxaa loo sameeyay sidaa oo maxaa qayra loo bedelo oo maxaa loo yeelo oo waa aynu galno waxba tari mayso waa wixii hore ina baaba'shay weeye waa wixii hore dhulkeena la dhacay oo dadnimadeeni oo dhan baaba'shay weeye marka yeynan marna isku dayin inaynu wax dhibaato aynu wadankeena u horseedno khayra kuwa badan oo khayr oo kala baa joogo malyaana ilaahay iidankiisana khayr oo kala la soo dooran doona insha Allah ilaahay iidankiisa biidmillah marka mar walba anagu hadaan shacabkeenahay sida hal qof lama jeclayste dawladda iyo dalka la jeclaystaa ciideena inaan jecnaana almuhiima oo in ciideena dhibaato u diidna muhiima oo colaad iyo hadeer in la isqabqabsado in la isku yaac inaynu u diidno hor taagnaano hadaan shacabka nahay baa muhiima ayaa ka wanaagsan wax walba annagu marka ciidan difaaceedana maanta laga bilaabo difaac mayno nin difaac mayno ciidayadan difaacayna insha Allah biidmillah maanta laga bilaabo ciidayadan difaacayna nin difaac mayno nin jeclaysna gali mayno waxaan difaacaynaa ciidayada insha Allah biidmillah in qalalaas ka dhacaan in gaala nagu soo dhex dhuumato in masaa'ib kala mariyo weyna nagu soo dhex dhuumato in qaylo weyna nagu soo dhex dhuunto hadda waxaasba midhaama taqaanaan aan hadda afkaasan ka wado laakiin qaylo weyna haddaa maqashaan waa masaarida weeye qaylo weynaba haddaad maqashaan waa masaarida waad aragtaan hadda dhibta ay gelisay Soomaaliya qayb ka mid ah Somaliland la baxday dhibta ay gelisay waad aragtaan hadda nin asagu raba wadankiisa inuu dagaal gelino adiga siyaasadaada ka qarribo lagama yeelo waa naf jeclaysi weeye taas oo kale dhibaatada asagu ka cararayay buu rabaa inuu wadankeena geliyo waad aragtaan midakan kale oo muxuu ahayto oo iyaguna imaaraadku waad aragteen gobol kale iyaguna ku dhagan yihiin oo inta dabka shidahayaan haw malaynay inay khayr ka sameeyaan inaga un bay dhibaataynayaan dadkeena isku dirayaan dhibaato un bay wadaan ma ahana haw malaynayna inay inaga khayr noo galayaan ilaahay sharkooda iyo shar kalaba hayna ka hayaan leenahay walaalayaal dhamaantiin ilaahay sharkooda iyo shar kalaba Allah naga hayo wax dara inaga ku jirta ay dhababa hawle ka tilma arko haddaan Soomaali weynahay inaga ciideena ayna hudhan ciideena wixii dhibaato ku wada inaynu ka hor istaagno waa khasab weeye bal adinku fiiriya dhibta maanta dhacday oo in khayr la bedela noqotay inta yar oo shaqada laga kala maqan yahay waxa weeye waa la ka faa'iideysan karaa inta yar oo shaqada laga kala maqan yahay oo doorashada lagu jiro oo niman kale la keenayo waxa weeye nin walba faa'iideysi baa labadaas asbuuc laga faa'iideysanaya ama shaarkaas ilaahay marka wixii dhib oo dhibaato Allah ina ka xijaabo walaalayaal Soomaali Maxamed laakiin waxaan leenahay Soomaalida shacabku waa ka badan yahay hal nin iyo laba nin iyo saddex nin iyo 10 nin iyo 100 nin waa ka badan yihiin waa inay wadankooda sii hayaan waa inay olaha ku jiraan waa inay muxuu hayto meelaha leena ka soo galaya ay garanayaan oo indhahooda ayagu u jeedaan waa in dhalinyaradu inay wada tahay askar iyo wada dawlad tahay waa inay ahaataa waa inay siyaasadda ay soo galaan dhalinyarada madaariska iskuulka jaamacadaha dhigata waa inay ilaaliyaan wadanka waxa weeyaan qulqulada ka dhicin yaan muxuu hayto muxuu ahaa inta laga soo dhisayo ra'iisul wasaare iyo inta laga soo dhisayo waa in wadanku uu muxuu hayto sidiisii horumar sii gaara oo sii socda waa inayna marna raali ka noqonin in daldaloola layna ka helo inagoo dhan baa wada dawladda shacabku waa dawlad weeye dawlad hadaa maqashaan waa shacabka nin iyo laba iyo ma ahan marka walaalayaal dhamaantiin waxaan dileeyahay waa inaad isku duubnaataan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeye wuxuu jecel yahay muxuu ahaa raali ahaansha Allah buu jecel yahay inaynu Allahna ku kalsoonaanaa aynu ku kalsoonaanaa dalkeenana ku kalsoonaanaa oo wixii dhibaato ka dhacay ama ka imaanayana aynu ka hor istaagnaa 10 nin oo meel isku soo xiray 100 nin oo meel isku soo xiray oo yir muxuu hayto aynu ninkan ridno waxa weeye yeynanu joojin haddaan shacabkii Soomaaliyeed nahay yeynan marna u joojin aynu ka hor istaagno wadankeenu in qalalaas ka dhaco dhibaato ka dhacdo aynu ka hor istaagno ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqa hayna fahamsiiyo
wixii shar iyo dhibina ku wadana allah hayna ka qabto isagaa raxmaane inagu haddaynu shacabnahay waxa lagu dul dagaalamaa waa inaga waxa la baabiyaa waa inaga waxa la guryahooda la dumiyaa waa inaga wax ciidooda laga qaxiyaa waa inaga waxa gaala kusoo duushay AIDS iyo cudur iyo masaa'ibu keentaa waa inaga waxa hubka lagu soo daldalaa waa inaga waxa la isku keen laayaana waa inaga waa inaynu ka hor istaagnaa marka wixii dhib inoo keenayo waa inaynu ka hor istaagnaa oo aynu ka diidnaa marka walaalayaal waa inaad mar walba u taagnaanaa waa inaynu u taagnaanaa wixii meeshaas maaragtaa dhibaato ay ka imaanaysa waa inaynu u taagnaano aan dhahanaa war annaga dhibaato meelna nagama soo gashay naga joojiyo innagaa madaxweyne ah innagaana ra-iisul wasaare ah innagaana baarlamaana innagaa ra-iisul baarlamaana innagaa kulli shay ah dadkaan innaga inoo shaqeeyaan waa adeegayaal meesha jooga haddayna anfici waayaanna aayar baynu gacanta isaga hor leexinaynaa oon dhahaynaa war bannaanka isku badbedela annaga isku korbadbedelinine naga daaya dhibta naga daaya annaga waddanka iyaga ma rabno dhibaato inay ka dhacdo ma rabno in caleen la soo geliyo ma rabno in masaa'ib la soo geliyo ma rabno in la isku dugo xabada layna ku kor iibiyo ma rabno dhibaato oo dhan ilaahay subxaana xaqa hayna fahamsiiyo walaalayaal dhammaanteenba meelaan joogno xaqa allah hayna fahamsiiyo innaga wax danaho inoo kugu jirtaa ma lahan dagaal inuu waddankeena ka dhaco in dhibaato ka dhacdo in waxa weeye hawshii inoo socotay ama ha noqoto shidaal la qodayo ama ha noqoto muxuu hayto dayn la cafiyayo ama ha noqoto wax badan oo laga shaqeynayo waa istaagayaan sababtoo ta nimankii waday waa nimanka la casilay laakiin inagu waxaynu nahay dadkii u dhaxeeyay baana inaga ah muxuu hayto maamulkii inaga ah looyarkii waddanka inaga ah looyarkii waddankaynu nahay inaynu ka hadalno inaan ka doodno inaan ka dagaalanno inaan ka dhahno muxuu ta dhib ma rabno annaga weeye waa dadkii looyarkii waddanka inaga ah xooggii inagaana inaga ah hooyadii waddankana inaga ah ilaahay subxaana watacaala walaalayaal xaqa hayna ku dilo xaqana hayna fahamsiiyo inaga waddankeena ma rabno in dhibaato ka dhacdo in colaad ka dhacdo in qulqulad ka samaysmanto in dhibo ka samaysmo in hawsheenii socotay inay dib u kala dhacdo ma rabno meel yar oo lacag muxuu hayto meel yar oo dariiqo la dhisay inuu istaago ma rabno inay sidii hawshu ku socotaan rabnaa insha Allah biidmillah inay sidii ku socotaan rabnaa hawshi meel mid walba inay meesheeda ku soo noqotaan rabnaa ilaahay xaqa hayna fahamsiiyo wixii dhibaato wadana Allah hayna ka hayo adduun iyo aakhiraba olaha iyo dhibta iyo masaa'ibta iyo mashaakilka socotana ilaahay subxaana wax nagama galfado waxna nagama kaxeeyo nagama qaado wiilashayeedu kii la bedelaa iyo kii joogaaba waa isugu keen mid weeye kii la keenaa kulli waa Soomaali weeye Italian la keen mahayo ama Ethiopian la keen mahayo Soomaali kale la keenayaa madaxweynaha berri asagana waa la bedelino mid kale soo fuulin annagu waddankeena inaynu looyarkii waddankeena nahay oo aan waardiye ka nahay unbaa muhiima haddaan shacab nahay inaan isku duubnaano innaga shacabka unbaa muhiima ilaahay subxaana marka xaqa hayna fahamsiiyo walaalayaal masaa'ibta adduunkana Allah hayna ka hayo inagu hooyooyinka waddanka nahay wiilasha mid walba inagaa dhalnay mid walba inagaa gacanteena ku soo rabayno ku soo korinay kii maanta laga qaadaa berri buu madaxweyne noqon kii muxuu hayto soo koraa waa wiilkeenii kale annaga waddankeena inuu hagaagsan yahay unbaa noo muhiima ilaahay idankiisa oo dhibaato la'aan iyo mashaakil la'aan uu ahaado insha Allah marka ilaahay xaqa hayna ku dilo xaqa hayna ku soo duwo ilaahay idankiisa haddaynu nin jeclaysi sanad walba galno waa dhibteeday leedahay waxa weeye nin jeclaysi dambe geli mayno waddankeena aynu ilaalsanaynaa dhibtana ka ilaalsanaynaa insha Allah biidmillah ilaahay idankiisa ilaahayna xaqa hayna ku soo duwo ilaahay khayrka hayna waafajiyo meelan joognaba insha Allah khayrka Allah hayna waafajiyo adduun iyo aakhiraba walaalayaal inagu waxaynu nahay hooyooyinkii Soomaaliya nahay wiilasha la bedelayay iyo kan la keenayay iyo kuwa horay u joogay iyo kuwa hadda joogaba hooyooyinkoodii baa nahay ilaahay subxaana masaa'ibta adduunka iyo masaa'ibta aakhiraba hayna ka hayo walaalayaal dhammaantiin waxaan idinkaga tagahayaa khayr iyo baraka idinkaga tagahayaa ilaahay subxaana watacaala waddankeena inoo dejiyo inoo qaboojiyo mid khayr badan oo sidii khayra Allah inoo keeno ilaahay inoo keeno ilaahay idankiisa xaq Allah ku soo wadeeyo mid khayr qabo ka sii fiicnaada khayrana Allah keeno kulli inaga dhalnay khayrana waa wiilkeena kuwa la keeniyana waa wiilasheena insha Allah biidmillah kuwa joogana berrina iyagana waa la bedelayaa mid walba saas waa meerta adduunkan kursigaan waa iska meerto
marka ilaahay idankiisa khayr baan idiin rajaynaya meelaad joogtaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu